waa tahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Harun Macruuf. dhacdada taariikheed ugu weyn ee Soomaalidu ay ku faanto waxay dhacday 72 sano ka hor markii dalka laga yegleelay xisbigii ugu horeeyay wadaniga ahaa xisbigii leegada oo dalka u horseeday xornimada sanadkii 1960 haddaba sidee ayaa xisbigaasi uu ku dhashay sidee ayuu ugu guuleystay inuu wada hanto taageerada Soomaalida maxaase dadka hadda jooga ay ka baran karaan aasaasiyaashii Soomaalida maanta waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf haatanna xildhibaan ka ah baarlamaanka Soomaaliya aabihiina uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalkii dhagax tuur ee gobonimo doonka ee 5 Oktoobar 1949 ugu horreynna waxa aan weydiiyey sida SYL ay ku aasaasantay waxa loo aasaasay Yaasiin Usmaan Yuusuf baa mataqaanaa horta fikradda keenay isaguna waxaa jiray 47 nin oo Talyaani oo xisbiga shuuciga ka tirsanay oo ka soo cararay Mussolini oo Soomaaliya soo galay si la socotina shuuciinta mar wax ka soo jeedeen gumaysiga iyo ismaashay ka soo jeedeen markii Yaasiin la isbarteen marka waxay wada dhageysan jireen raadiyo mataqaanaa dagaalkii labada adduunka soconaya dhageysan jireen waxaa dagaalkii labaad marka ka dhashay dhaqdhaqaaqyo gobonimo doon ka dhashay oo mataqaanaa Afrika iyo Asia kulli ka bilowday oo gumaysiga la dagaalamayay marka iyada ayaa ay meeshii aaraad siyaasiyiin iyaga wada hadleen oo ku yiraahdeen Yaasiin hadii laftiisa ma samaysataan bay ku yiraahdeen madal Yaasiin marka fikradaas u qaatay nimanka iyaga ahaayo 13 nin walba gaarkiis ayuu la sheekaysan jiray marka wuxuu diidanaa in Ingiriisku ogaado waa weeye dhalinyarada dhex galay in walba waa la sheekaysanaya dhaqaaqyada gobonadooyinka meel ka jira kala sheekaysanaya markii uu ogaado ninkuu ra'yigiisa uu qabo ra'yi fiican ku arko ayuu leeyahay jiray hadda saasabeen yalla maxay mataqaanaa sababta marka waxay aasaaseen SWC waxa la yiraahdo Soomaali Club waxa la yiraahdo macnaheedu waxa xisbiga diidan in la ogaado aburiyo marka muddo magaca ururka dhalinyarada oo la darariyo iyo sameysay laakiin underground oo dadka hoos laga hanuuninayo oo la gaarsiinayo xorriyadda isticmaalka la dagaalamo ayay ka shaqeynayeen marka ka dhacay ayaa maaragtay markii ogaayeen dadku raacsan yahay dadku gobonnimadii loo diyaashay ay ku dhawaaqeen xisbi siyaasi oo SYL loo baxshay waa gartay waxaad ii sheegtaa marka si hoose ugu dhawaaqeen baa tiri SYC ayay marka hore ku dhawaaqeen ka bacdina SYC waxay isu rogtay SYL marka bal shaqooyinkii ay hoosta ka wadeen wax iiga sheeg iyo ololihii waxay hoos ka wadeen dadka inay yiraahdaan isticmaal ma la dagaalamaya hal diyaar garoobo Soomaali meel joogtada ayay dadku diyaar gareynayeen dadkuna waa soo dhaweeyeen isla markii dadka Soomaali dad iska furan bay ahaayeen way ogolaadeen isticmaalka in la dagaalamo oo xorriyad la gaaro markii ogaadeen dadku aad u la jiro meel walba ay ku dhawaaqeen ay siyaasiyiin xorriyad doonayaan marka waqtigii Ingiriiska afar dhaqdhaqaaq xoog la dhacay oo isku xigay oo mataqaanaa munaasabado waaweyn oo dagaalo ah xoog la dhacay sidii hore 1946 buu ahaa markii Ingiriisku soo rogay koodiga madax canshuurka uu soo rogay dowladda leegadu ay la hadashay Ingiriisku wuxuu yeeray odayaashii qabaa'ilka madaxda u ahaa wuxuu waa saxiixaysan wuxuu waa soo tishanayna waxa ka mid ah nin leegada oo Allahu naxariisto Xuseen aan noolaato oo asoo markaa dhaqaaqay ahaa qoladii beelaha Soomaaliyeed ka mid ah xamarka waraa dowladda markii ay meel isugu keeneen odayaashii wuxuu ku yiri laba geeriyood baynu dhexnaalaa waxaanu dooranayna midda sharafta la misanka midda aan sharafta lahayn haddii Ingiriiska ogolaanana dadkeena nadilayo leegada nadilaysa sharafta ku dhamanayna haddii diidmada Ingiriiska la dilayo sharafta ku dhamanayna marka labaas ay kala dooran waxa la yiraahdaa kugu raacmay markaan gaalka u tagno u sheeg mataqaanaa in arrintaas ay aanan ogolayn gaalka u tagay wuxuu yiri Soomaaliya waa diiday saayidna Soomaaliya hanooda loo baxshay isla markiina waa la xiray dadka bacdina waa la soo daayay waxa xigtay 1947 waa gartay dagaalka kalena goormo ahaa waxa ku xigay dagaal duqa magaalada Xamar wuxuu ahaa boobeysta oo liiga Talyaani buu ahaa mataqaanaa markii wuxuu abaabuli jiray mar walba axsaab Talyaani oo isticmaalka midka xorriyadda ka soo horjeeda oo leegada ka soo horjeeda dabadeedna wuxuu abaabulay nimankii Yemeniinta ka soo jeeda Carabta ahaa oo ku yiri mataqaanaa adinku
weeye waxaa tihiin mataqaanaa ishegeen dadkii sayid barqash oon dalkan annagu aan u haynay dadkeed iyo baadiikiiba dalka qabsanaya marka waa inaan la dagaalanta marka yamaniintiina marka xoog bay ku lahayeen magaalada xamar oo maqaayadaha iyo dukaamada iyo kulliga ayagaa lahaa gaari farasyada xataa markaa taxi ahaa ayagaa lahaay oo mataqaanaa iska lahaan jiray marka waxay sameen gaariyaashii ka fureen fardihii seefahooday soo qaateen dabadeedna leegaday weerar kusoo qaadeen ma garan oo xaruntii leegaday qabsadeen leegadina waa la dagaalantay aad baa loo laayay maalinta iyada ah runtii marka waa 47 weeye mataqaana markay dhacaysa arrintaas waxaad ii sheegtaa marka dagaalkaas markuu dhacay dagaalkii dhagax tuur isaga goormuu dhacay 48 waxaa xamar yimid fort dawa cabdullaahi ciise allah u naxariistay waftigiisi markay united nationka tageen iyo xorriyad baanu rabnaa talyaaniguna koox ka daba diray ay leeyihiin xorriyad ma rabeen talyaanina loo soo celiyo afartii dowladood dagaalkii labada adduun ku adkaaday baa soo baxay oo yiri waxaynu soo ogeynaa dadku maleegad iyo xorriyad bay rabaan mase talyaanay doonayaan marka 3 beri oo hore waxaa shir socday 6 xisbi oo mataqaanaa Borotalin xisbi mooye inta kale ay tahay oo calanka talyaaniga wata oo leh mataqaanaa ay sheegeen ma rabno xorriyada talyaaniga loo soo celiyo marka maalinta 11 January 48 baa maalintii leegada oo maalinta xawta ka tilaya weeye talyaaniga markuu wuxuu soo diray Borotalinkii leegada weerarada yiri dabadeedna xawtaakis markuu markaa joogtay xarunta leegaduna waxa ku sirfay meesha guriga ummadda iyo hadda ay ka dhisay yihiin meel walba inay sagafisi awoodooda u aragto markaas ayaa horseedkii leegadu waxay u tageen waxay xarunta waa la qabsaday xawtaakana waa la dilay leegadu weerarada soo qaaday 52 talyaani dileen markaas magaalada xamarna leegada qabsatay kuwii Borotalinkana waa carareen soo daawarkii markay noqdeen oo ay dib u laabteen way xagga tageen way go-aan gaareen leeyihiin mataqaanaa Soomaaliya talyaaniha loo dhiibo markay diyaar garoobaan inay khasnad qaadan karaan ha qaarteen markaas ayaa mataqaanaa iyagoo diyaar noqdaan xorriyad hala siiyo cabdullaahi ciise marka taar soo diray la yidhaahaa beel ay Somali oo la yidhaaho oo codka ummadda Soomaaliya uu leeyahay waxaa go-aan lagu gaaray talyaaniga loo soo cesho without condition oo macnaheedu yahay inuu caburiyo dhaqdhaqaaqa goboldoonka marka waa inaan muujistaan inaad diidantihiin marka waa 49kii waa 5 Oktoobar 1949 dagaalkaas waa dagaalkan ku sheegay abay ku dhintay rag badan oo odayaal badan baa ku dhintay dad badan waa lagu dhaawacay xaruntii leegada mataqaanaa waa la xiray central committee waa la masaafishay magaalada iyo dalkiina bandi waa laga dhigay marka waa marka cabdirasaaq iyo allah u naxariistay taarka dirayeen lawaaxa iyo cabdullaahi yuanka u dirayeen leeyihiin intaas qofood baa dhintay intaasna waa dhaawac xaruntiina waa xiran tahay central committee waa la masaafishay waa xiran yihiin cabdullaahi meesha khudbada uu ka akrinayo markaa la weydiiyey safiirkii ingiriiska mataqaanaa markaas yuanka joogay iyo nusaa halaysiyo buu yiri mataqaanaa arrintaa waa soo sheegaya arrintu waa dhacday safiirkii ingiriiska marka ayaa bishii November 49 la fariistay amendment waxa lagu sameeyay go-aankii hore oo waqtiyeysnay markaas waxa go-aan lagu gaaray Soomaaliya in 10 sano gudahood xorriyad la siiyo oo mataqaanaa talyaanigu uu gaarsiiyo markii la gaaro 60 ayaa go-aan lagu gaaray waa gartay marka intaan sida buuxda loo hoos tagin talyaaniga bal waxaad wax yar iga sheegtaa aragtida wadamada caalamka Mareykanka Ruushka Ingiriiska Faransiiska iyo wadamadii kale arrimaha Soomaaliya xiiseynayay Masar oo kale fikradii ay ka qabeen in Soomaaliya lagu wareejiyo talyaaniga waxa weeye horta marka ugu horeysa talyaaniga mataqaanaa in loo dhiibo wadamada reer galbeedka ah waxa Ingiriiska ka u leeyahay soo leegadu ma ay talyaani ma rabnay dhaayeen Soomaaliya talyaaniga in loo dhiibo nolol soo celiyo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska leegaduna waxay diideen talyaani in loo soo celiyo waxa Ingiriiska u leeyahay waxay ogolaada talyaana leeyihiin ayaaba yahay marka waxa weeye dagaalkaas dhagaxtuur waxa la waa dagaalkii goostay in la cayimo xorriyada marka la siinayo markii dadka la laayay faraha badan oo dad badan la dhaawacay waxa soo dhaceen bishii November baa marka waxa dhacay waa 5 October November baa dib loo fariistay oo marka la yiri waa in la siiyaa mataqaanaa sidii sabab lixdanka xorriyada Soomaaliya la siiyo markaas go'aan la gaaray waa gartay marka xukunkii talyaaniga sidee buu ku bilowday talyaani wuxuu la soo galay alcar iyo weerar iyo dhibaato la soo galay iyo caburin uu raba leegada inuu burbursho axsaab Borotaliyana sameeyo oo xorriyada dib u dhigo ayuu ka shaqaynayay laakiin leegadii xoog iyo waxa ka sii midnimo iyo mintinnimo ka sii qaaday
talyaanigina kuma usuun guulaysan waxaa markaa soo 54 baa nin waxaa duqa magaalada ka ah xamar duqa magaalada maaha ama sortooraha talyaaniga xukuma mataqaana waxaa la dhihi jiray magaciisa Ancelotti aad maqashay Rick Ancelotti baa la dhihi jiray wuxuu rabay inuu ogaado dadku maleegaday raacsan yihiin mase waa mataqaana baratani weeye dalku municipality ma xamar mooye inta kale xamar keliya dowlad hoose weliba oo dug magaala ka yahay talyaaniga marka doorasho dowladaha hoose sameeyay si uu ogaado mataqaana dadku maleegaday la jiraan mase waxay la jiraan mataqaana talyaaniga la jiraan codadkii marka waxay kusoo baxeen 90% ka badan mataqaana ayaa leegada guulaysatay marka ayuu mataqaana ogaaday in dadku leegada la jiro oosan talyaanigu caburin karin ayuu Abdullahi Cusmaan u yeeray oo ku yiri waxaan rabnaa inaanu annaga idinku heshiino oo aan collaboration wada shaqeyno oo xorriyadii waqti lagu talagalay siino oo markaas aynu misnaa dowlad daaqil ay soo hormarino ayaa mataqaana ayaa mataqaana collaborationahaas dhacay marka collaborationahaas dhinacna uu ka fiicnaa dhinacna qalad uu ka ahaayo waxaa weeye matalan kundishikan waxaa kamid ahaa in nimankii baratooyinka ahaayo xorriyadda kasoo diiday maamulka la sameynaya inay ka qayb galaan ayaa kundishin kamid ahaa marka leegadu waxay laba buug bay lahayd buug madow iyo buug cad bay lahayd buugga cad waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda doonaya ayaa lagu qori jiray buugga madowna waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda kasoo horjeeda ballantiina waxay qof walba wuxuu mutaysayni helo 60 markii xorriyadda la qaato ayaa dadka lagu ballaniyey marka buuggii madooba iyo buugga caddaa meeshaasay ku dhinteen magaray collaborationahaas tanana lala galay ayaa dishay ayaa meesha ku dhimatay marka dhibaatada ugu weyn leexashada keentana taas ayado halgankii xooga badnaa ummadii soo gashay xoogaa dhiseed ka gaarsiiyey heshiiskaasuu ahaa ma garan dhinaca kale qolada mudareedka ayay yihiin talyaani culaaskiisii dhibaatadiisanu iska leexinayna ayaa iska ogolaan oo xorriyadayda waqti loogu talagay aynu qaadano oo ayay mataqaana qaarna waxay la war waxay iyo taariikhda iyaan lagu cayaarin oo adigu meesha leeyada xataa ku kala jirtay waa ku kala dilaacday waa la socotaa daaqilka markii la qaatay aadan Cabdullahi Cusmaan Allah naxariisto wuxuu noqday raiisul baarlamaan Cabdullahina wuxuu noqday Allah naxariisto ra'iisul wasaare ninka la yiraahdo Allah naxariisto Xaaji Maxamed Xuseen 13 kamid ayaa waxa loo doortay presidentki leegada Xaaji Maxamedna waa dadka xaj jiro oo ogolay heshiiskaas ka soo jeeday buu ahaa markuu xaban yimid waa ka hor yimid leegadii baa laga saaray oo la yiri mataqaana ay sheegeen ninkii leegada 13 kamid ah waa laga saaray dad badan baa la caro jiray Soomaaliya furay marka leegadu way kala jirtaa arrintaasina ku kala jirtaa arrinta ku saabsan dawladii daaqiliga sida ugu diyaarisay wadanka xornimada iyo doorkii SYL iyadana wax iga sheeg waxa weeye daaqilku waxa loo diyaar garoobay mataqaana in xorriyadda waqti lagu talagalay la qaato 60 markii la gaaro maamulku meel gaar oo sii diyaariya mataqaana si dowladda xukuumadda meesha laga sameeyay marka 60kiina waxaa soo diiray wayna waa yimaadeen laba xisbi oo xisbiga SNL iyo xisbiga USP ayana yimid oo midnimadii Soomaaliya wax ka saxay oo xamar lagu saxay oo 1960 labadii gobol oo Ingiriis ka kacay Talyaani ka kacay baa mataqaana la mideeyay oo jamhuuriyadda Soomaaliya aasaasay marka iyada ah 61kiina arki loo qaaday in mataqaana jamhuuriyadda Soomaaliya ay jamhuuriyadda ka mataqaana waa gartay leegada SYL sidee bay uga gudbeen arrinta ku saabsan qabyaaladda waa ka gudbeen Soomaalida isku aamineen leegaan ma sheegay jirin mataqaana wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo mataqaana aan qabiil sheegan karin buu ahaa oo loo ogolay ninka haddii qabiil sheegtana leegada waa laga saari jiray ama waa la ganaaxi jiray masalan haddaan kuu sheego waada dhowr kontonkiiba nin Borotaliyana ayaa xabad waxa ku dhiftay leegada madaxa xabad kala dhacday leegadii oo dhan baa inta lasoo xareeyay baa la gelshada karbaniyeriga talyaaniga ahaaba mid yaala markuu ninku soo galaya waxa la leeyahay kii raasasay qabiilkaaga waayo markaasuu leeyahay ninka leegada dhimay qabiilkeeda Soomaaliya buu leeyahay markaasaa la dilaya inta la garaa xabsi lagu tuurayo marka nin dhalinyaro leegada kamid ayaa mataqaana meeshii soo galay markaasaa la kii raasasay marka wuxuu raggiisa xibnihiisa galgalanayo la dilayo ayuu arkay markaasuu yidhi caawa keliya reer baan waa la soo daayay war maxaa kusoo bokada ragale waa la xiray waan ka sheegay waxaan caawa keliya reer baan ahay markaasaa la ganaaxay waa la ganaaxay waa mataqaana waxaa la yidhi waa qalad barsamay inaad qabiil sheegato ma ahay marka waxa weeye halkaas qabiilka waxa la diiday la nacay buu ahaa dunya oo baktiga qarandiisa buu ahaa
waa gartay markaad aan ka hadalno waqtiga maanta aan joogno miyaa ka adkaa oo ka dhib badnaa xilligaas mise dadka iyo wadaniyiinta xilligaa joogay ayaa ka howlkarsanaa kana aqoon badnaa kana wadanisanaa dadka hadda jooga waa midkii waxa weeye hor dadka hadda jooga dad jira maaha dad taariikhlana maaha dadkaagi dadkaana wax la seerdhigi kara maaha dadka waxa ila isticmaal jiro oo la dilayo oo la xirayo oo shaqada laga eriyayo oo xabsi lagu tuurayo wax walba lagu samaynayo ayay soomaalinimadooda mataqaana ayay u dagaalamayeen xoolahooda ku bixinayeen oo u dhimanayeen oo wax walba ay samaynayeen dadka halkaa jirana dowladnimadii iyo qarnimadii burbursheen qabiil bay ka doorteen iyo shaqajaannimo iyo tuugnimay ka barteen ayay ka doorteen iyo jaajuusnimo iyo shisheeye inuu shaqeeyaan bay ka doorteen qarnimadii mataqaana iyo dowladnimada dadka usoo dhinteen usoo dagaalameen marka dad la sheerdhigi kara ma ahayn iyo dad si doctoona aqoonta kuwaana aqoon badan oo tacliim badan laakiin aqoon xun waxba aan tarin bay mataqaana meel la ogdaayaan oo qarandiisnimo aan waxba tarin marka waxa weeye wax la sordhigi kara maaha iyo wax la sheegi kara maaha waxaan garanayaa dad mataqaana ay sheegeen shirkooda leelada calaamadeeda ku xiranaya oo inta isku dilaya oo le shirkayga meel kale ku aaminimay calaamada leegada dadku meeshaasay gaarsiisanaya gabdhuhu lamay hadli jirin oo dhalinyaro ahayn oo leegaan ahayn oo sama xirayn calaamada leegada lamay hadli jirin canduurta ku jirta oo ka dhaqaan marka dadkaas waxa weeye gabdhuhu munaayadahooda geli jireen iyo mataqaana dhegahooda iibin jireen masruufta la siiyo ayay nusu leelada u geyn jireen marka waxa weeye dadkaasi dad laisku nisbayn kara maaha iyo waxa si dhow midda toona marka dadka hadda jira dad dulliya weeye oo wada jaajuus ah oo wax daran ah oo shisheeye u wada shaqeeya oo liita weeye oo wax ka liita aana jirin weligeyna ma arki dad noocaan oo kale dadka hadda jira waa gartay maxaa ugu wacan bay kula tahay ma garanay wax waa dilo waa qaran tagnay waxa weeye qarannimada waa naga baaba'day qabiil iyo tuugnimo iyo srajan waxa la reer hebel baa wata reer hebel baa wata reer hebel baa wata yani wax kalaba la garan maayo markaasaa nin walba u tartamaya inuu isticmaalkooda ka galo iyo waxay ka dhigeen mataqaana usan aaminsanayn dalkii dadkiisii sharaftiisa midna usan aaminsanayn haba yaraatee wax la samayn karo oo waqtigaas iyo dareenkii wadaninimo ee xilligaas jiray iyo maxaanku idhaahdaa daljacaylkii iyo wadan jacaylkii lagu soo celin karo xilligaasi jiray ma jira dadka soomaalida kulli kama ay dhammaan wadaniyadii daljacaylkii dad badan oo jecel wadanka iyo midnimadaa jira laakiin organisasyono midaysan male kalsoonidiina waa dhimatay oo is-aaminkiibaa yaraaday marka haddii organisasyon wadani u abuurmo oo xisbi wadani u abuurmo oo ururiyo dadka muwaadiniinta ah dib baa loo soo noolayn karaa wadanidii soomaalinimada qof kastoo la sheekaysiiyo dareenka waa raba wadaniyada laakiin waxa ka adkaaday midka ku shaqaysanaya shisheeyaha u shaqeyna danaysa qabyaaladii qurb waxaa lagu dilay soomaalida sinaasina laba qodob qabiil siyaasadaysan oo derse lagu raadinayo iyo diin siyaasadaysan oo derse lagu raadinayo ayaa soomaalida sinaasina bishxargaasiisay dadka soo xiray marka in laga baxo soomaalinimadii qarnimada soo celiyaa loo baahay intaad ka xorowdaan qabyaalada iyo waxyaalaha lamidka iyo danaysiga midnimo iyo wadajir usoo jeeto xorriyadii iyo sharaftiina soo ceshada oo midooba isjeclaada oo mataqaana qarannimadii iyo nafciisiina soo ceshada laisku aqoonsi intaasaan ku leehay barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cabdi yuusuf ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaanna ka ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xilligan inta aynu mar kale kulmi doonnana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo aad buu u mahadsan yahay haaruun macruuf